السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay. maanta waa khamiis, barnaamijkuna waa kii ugu horeeyay, taariikhduna waa 18 bisha December sanadka 2025. barnaamijkeena waxaynu ku soo gudbinaynaa warbixino ay kamid tahay Masar oo ku baaqaysa in sida ugu dhaqsaha badan Gaza loo geeyo ciidankii nabadda ilaalin lahaa, soo kalena laga shaqeeyo in la sameeyo maamulkii marxaladda labaadna loo gudbo heshiiska. haddaba waxay sheegtay Masar in xaaladda laga soo sheegayo Gaza ay tahay mid aad u liidata marka laga hadlayo 48 saac ee la soo dhaafay. waxaa la sheegay in halka ay ka jiraan roobab qabow iyo dhibaato, iyadoo dadka dhintay ay wariyaashu sheegeen in 17 qof ay gaarayaan, lagana baqayo dad kale saacadaha soo socda qabow dartii inay ugu dhintaan Gaza iyo markaa roobabka oo aad u sii xoogaysanaya. xilligan waxay ku soo beegmaysaa Masar ay hadlayso iyadoo wadamada Carabta intooda badan ay markaa dadkooda uga digeen cimilada iyo roobab la filayo mihigaan inay ka da'aan dhowr dal oo Caraba. haddaba Gazana waxay ka mid tahay leeyahay meelaha baqdinta laga qabo in roobabkaasu ay si weyn u saameeyaan oo markaa ay dhibaato badan ay halkaa ka geystaan. haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekadan waxaa qoray wakaaladda wararka ee Anadolu. waxay leedahay Masar waxay ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidan nabadda ilaaliya oo caalami ah loo geeyo Gaza. haddaba warbixintan iyadoo sii socota waxaa leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Badr Abdulcaati ayaa gelinkii dambe ee shalay waxa uu sheegay in degdeg ay tahay in loo geeyo ciidanka deganaanshiyaha caalamiga ee sugaya amniga Gaza. waxaana uu sheegay in sidoo kale ciidankaasu ay ilaalin doonaan xabad joojinta iyo ilaalinta dadka rayidka ah iyo sidii ay uga shaqayn lahaayeen xaaladda amniga iyo gargaarka in la geliyo Gaza. arrinkan ayaa yimid kadib markii telefoonka uu kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda Yurub, ninka la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda oo wadankaasi la yiraahdo Slovakia, Yuri Balanar, kaasoo ay ka wada hadlayeen dhanka telefoonka. waxaana uu sheegay in loo baahan yahay midowga Yurub inay kaalin ka qaataan sidii arrinka loo dedejin lahaa, dadka dhibaataysanna wax loogu qaban lahaa. marka Masaaridu waxay leedahay xaalkan aad u liita. dad badan laakiin waxay isweydiinayaan, waxay leeyihiin yaa ka jawaabi kara? Yurub iyo Slovakia iyo waxaasa dadkan wax ka qaban kara. waa tii hadda la yiri jimcaha berito ayaa loo ballansan yahay in kulan ay isugu yimaadaan dowladaha dhexdhexaadinta si loogu dadaalo in markaa wejiga labaad loo gudbo bisha soo socota ee sanadka cusub ee dhalanaya, in wejiga labaad la galo si hawsha loo qabto. waa tii ay ku shireen shalay Washington wasiirka arrimaha dibadda Qatar iyo midka Mareykanka. marka xaaladahaasu halkaasay marayaan. dhibaatada iyo Gaza iyo mushkiladeeda iyo dadka reer Gaza dhibka haysta halkaas ayaynu kaga gudbaynaa. haddaba warbixin kale oo aad u xiiso badan ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijka. warbixintan waa warbixin la yaab la waayo. adduunyadan iyadoo la isla jiraa la kala jiraa, waa la iskhiyaamaynayaa, farsamada la iska xadayaa. sanadkii 2017 ayaa Turkigu wuxuu dalbaday in la siiyo gantaalaha difaaca Patriotic noocyadii ugu dambeeyay Mareykanku soo saaray, iyo waliba hub kale oo ay ku jiraan diyaarado Mareykanku ka dalbaday. Mareykanku way u diideen, waxay yiraahdeen ha sheegin waxaasu annaga ha noola imaan, isbedel waa inaa wadanka ka samaysaa. xilligaasna dee Erdogan waxaa la islaa doorashada dhici lahayd waa laga tuurayaa, waxaasa la islaa. marka reer galbeedkoo dhan way kasoo horjeedeen Erdogan wuu baxay xilligaas, wuxuu u tagay Putin, wuxuu yiri niyo gantaalaha S400
gantaalihii ugu dambeeyey ee difaaca hawada ee ruushka isagoo og turkigu inuu gaashaanbuurta neeta ku jiro ayuu saaxiibkiisa Erdogan ha laga iibiyey yiri gantaali turkigu gantaalihii soo qaatay qaybtii ugu dambeysay rakibaadda gantaalihii waxay qaadatay ilaa 2 sano 2019 ayuu soo dhamaystirmay hawshaas xaalku markuu halkaa marayo Erdogan doorashadii uu galay kadib uu gooleystay hawshu way dhamaatay hadda marka turkigu wuxuu yiri waxaan rabnaa diyaaradaha la yiraahdo F-35 markii horena turkigu diyaaradahaas marka la samaynayo qayb kamid ay soo sameyn jireen waxyaabaha oo ku jireen qolada farsamada waa laga saaray wixii oo dhan diyaaradihiina waa loo diiday hadda markuu Trump yimid ayuu wuxuu weydiistay inuu maartay diyaaradahaas iyo Trump iyo kooxdiisu waxay yiraahdeen diyaar waa lagu siinaa laakiin hal xujaaj jirta hay inaad gantaalahan ruushka ka keentay alis gantaalaha ruushka oo lacagta ka soo bixisay waa inaad iska celisaa taas waa qodobka labaad waa inaad burburisaa oo la baabi'iyo waa qodobka labaad qodobka saddexaad marka muxuu yahay qodobka saddexaad wuxuu yahay gantaalahan in Mareykanka meel lagu xareeyo Mareykanku ay ilaaliyaan iyadoo inaan la isticmaalin waa gantaalihii halista badnaa ee ruushku aanu cid walba ka gadaynin oo ruushka uu ka gaday turkiga ayaa saas la leeyahay turkiga wax badan oo isku dayay inuu iska daba warwareego laakiin hadda go'aan gaareen go'aankaas marka dadku siyaabo kala duwan u sawirayaan waxay leeyihiin turkigu farsamadii S-400 wuu xaday oo wuxuu soo saaray dhawaan gantaalo difaaca hawada ah oo ku naqshada kuwan marka ruushka farsamadii waa laga xaday dadka qaar aaminsan inkastoo dadka qaar ay leeyihiin ruush wax la xadi karaba hadduu uu qof ka gadaayo neeta ku jira ma intaas farsamadiisu ku eg tahay ma jirtaan wax laga xadi karo weyn ma jiraan in qaabka u sameeyay nidaamka la arko waa laga yaabaa adii sidii doontaa ahaato nimankii turkida ahaa Erdogan iyo dhawaan waxaa kulmay ninka la yiraahdo Putin shirkii Turkmenistan ka dhacay ayay si gaar ah u kulmeen arrintii uu dhiibay wuxuu yiri gantaalahan iga qaabo lacagna ay soo celin lacag fara badan laga sii Turkiga mugta lacagta daarabtii soo celin daarabta ay soo celin wax badan ay iga xaniban maxaa kaaga xaniban heshiisyo waaweyn diyaarado F-35 oo adduunkan wareeriyay oo Israa'iil iyo Greek iyo dawladihii cadawga aan la ahaa oo dhan Mareykan uu siiyay wixii oo dhan iga xaniban marka arrimahaas aan rabaa inaan ku soo furdaansado gantaalahan hadda waa ka maarmay oo macnaha gantaala kale oo qatar samaystay waa kaas niyo gantaalaaga oo lagu xujeeynaya qaado inta sharafkooda ku ciyaari lahaa oo aan burburin lahaa waa yaabeen ninkii Putin ahaa hurdo la'aan ku dhacay ilaa hadda xanaaq meel la geeyay mal ninkii waxa ogeyd isagoo la go'doomiyay reer galbeed oo dhan xukunka in laga tuuro rabeen loo diiday gantaalo in la siiyo cadow jabis aad u siisay ayaa maanta turkidu ku soo kala wareegeen dad badan marka waxay leeyeen turkidu waa danaystayaal ogaada annagu dalkeen waa ka buuxaan kulay waa naga adeegteen turkidu waa danaystayaal dantooda waa number 1 haday dantooda helaan waa okay haday dantooda ka waayaan laadayta kugu dhuftaari ka tagayeen hadda nimankii ruushkaas ay u galeen adduunka oo dhan hadda waxa laga hadlayaa khiyaanada turkiga uu ku sameeyay ruush nin dhan oo aad hub ka iibsatay hubkaaga qaado maxay waa mar farsamadiisa wixii oo dhan aad aragtay marka waa sheeko waalan haddaba aan idin tuso marka warbixin la yaab leh oo saakii telefishinka Al-Arabiya uu ka diyaariyay arikaas turkiga wuxuu weydiistay Putin in dib looga celiyo gantaalaha S-400 ee ruushka uu farsameeyo si loo raali geliyo Washington oo iyadu markaa arinka doonaysa haddaba turkigu waxa la sheegay inuu markaa iska daayay oo uu ka tala baxay gantaalihii difaaca hawada ee ruushka uu ka soo gatay S-400 kuwaasoo markaa dhowr sano ka hor uu ka soo iibsaday ruushka
waxaana hadda la sheegay xiriirka uu la leeyahay maraykanka oo uu doonayo turkigu inuu sare u qaado in arrinkaa lagu xiray waxaana uu si aada u doonayaa turkigu inuu helo diyaaradaha la yidhaahdo F-35 oo adduunka waalay hadda kuwaasoo la sheegay in lagu xujeeyey in markaa diyaaradaasi siduu ku heli lahaa ay tahay inuu gantaalaha celiyo haddaba warbixintan waxaa faafiyey wargeyska la yidhaahdo Bloomberg oo waddanka maraykanka laga leeyahay haddaba madaxweynaha turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay malafkan ama arrinkan inay markaa 13 bishan December uu ku soo hadal qaaday uu kala hadlay Vladimir Putin markii ay ku kulmeen waddanka la yiraahdo Turkmenistan u fiirsada adduunyada marka tan waaye marka turkigu waxay isbarbar dhigeen gantaalahan S-400 ee lagu xujeynayo macnaha ay turkigu ugu fadhiyaan hadda iyo diyaaradahan macnaha ay ugu fadhiyaan u fiirsada gantaalahan turkigu wuxuu samaystay gantaalo kuwan la mid ah ama ka agdhow ayuu helay oo macnaha uu ka kaaftoomay markii hore waxba ma haysan laakiin diyaaradan F-35 ayaa isaga muhiim u ah maanta sababtoo dalalka cadawga ku ah maraykan wuu siiyey waxaa ka mid ah Greega oo jasiirado ay isku haystaan turkiga diyaaradda wuu haystaa Israa'iil oo ay mar walba isu hanjabaan way haysataa waa mid ay Iran kaga yaabsatay oo nagta kaga saartay marka dawladihii oo dhan oo asaga cadawgiisa wuxuu u arkaa F-35 inay haystaan diyaaraddan diyaarad qof kasta sameey kara ma waa diyaarad maxnada oo maraykanku dunida ku haysto marka diyaaradii waxa lagu xujeeyay waxaan ruushka ka keentay celi hubka ruushka ka keentay ama baabi si anaga aan hub ku siino marka laakiin su'aalo badan ka dhashay waxa leeyahay maraykanka dhowr jeer ayay u ballan qaadeen turkiga diyaaradaha inay ka iibin doonaan oo ay siin doonaan laakiin mar walba waa laga baxay madaxweynaha ogolaanaya aqalka baarlamaanka Congress-ka diiday kana diiday jiray hadda inta isku ceebeeyo turkiga nimankan ruushka ah oo hubkoodii u celiyo ama uu baabi'iyo haddana haddii culays laga saaro la siin waayo ka war dada aaminsanba turki inaan la siinayn diyaaradda F-35 inta uu Erdogan joogo sababtoo ah waxaa loo arkaa inay khatar ku yihiin Israa'iil iyo wadamadan kale oo ay maraykanku ay wada socdaan sida Greega iyo kuwan marka sheekadaas waxay ahayd runtii sheeko aad cajiib u ah waxaanu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka haddaba qaybtan barnaamijka waxaanu kaga hadlaynaa nimankii Ukrainianka ahaa ayaa waxay qaateen diyaarado drone markaasay markab weyn oo uu Ruushku leeyahay ayay ku dhufteen markabkii khasaaro weyn soo gaaray Ruushku waa xaraaqeen Ruushka diyaaradahan drone-ka ay Ukraine ku baabiis asagana hal mar wuxuu soo diraa 500-600 oo diyaaradood iyo gantaalo wada socda haddaba marka falcelinta Ruushka ayaa laga baqayaa waxaa laga baqayaa gantaalo hadda ka hor uu ku garaacay Ukraine gaar ahaan caasimadda Kiev iyo meelo kale waxay sheegeen Ukrainianku inay ahaayeen dhul gariir inuu ka dhacay waddanka u maleynayay yowma meel joogsadaan marka tabartaada haddaysan dhammayn dhikar inaa iska celiso maxaa u xagxaganaysaa iyaguna waxay leeyihin tabar kala maayn naf kala maayn waxaan heli karna waa ku ridaynaa hadda ku ridide yaa kaa qabanaa marka xataa waxaa lagu leeyahay gantaalihii meesha ay geeyeen Yurubiyanka ee gantaalaha ku hortagi lahaa xataa ma qaban karaan uu soo dhacayo iyo markuu kula yaalo waa isku mid hadda marka Ruushka wuxuu ku maqan yahay jugta culus ayuu soo wataalle sidiisana waxaa la yiri marka uu rabo inuu daakum ka dhigo oo weerar qatar ku qaado Ukraine isagu maalmaha shaqada caadiga ma weeraro inta badan sabtida iyo axaddu nagta ka saaraa sabtida iyo axadda ayuu siday taa u duqeeyaa hadda marka waxay leeyihiin weekendiga ama sabtida iyo axaddan ayaynu sugaynaa alaabtii jugta culus inuu nagu soo garaaco dadka dhulka hoostiisa isku sii diyaariya halkan kala ma hadda waxay kala ordaa lagu jiraa nin walba alaabtiis kala habaysanaya
haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadan laga qoray waxay sababtay dhimasho iyo dhaawac weerar diyaarad daroona Ukraine ay ku qaaday markab Ruushku leeyahay oo ku sugnaa deegaanka la yiraahdo Rostov meesha la yiraahdo. haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay 2 qof ayaa ku dhimatay 3 kalena way ku dhaawacmeen oo kamid ah shaqaalihii la socday markab kuwa xamuulka qaada ah oo ku sugnaa dekada la yiraahdo Rostov ee ku taala koonfurta wadanka Ruushka maanta oo Khamiis ah. haddaba diyaaradan daroonka ayaa waxaa la sheegay inay beegsatay halkaas sida ay ku warantay wakaalada wararka ee Ruushka ee la yiraahdo TASS. haddaba sheekadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli la sheegay in markaa ay socdaan wada hadallo ku saabsan dhanka sidii dagaalada loo dhamayn lahaa. waxaana la sheegay Koongareeska wadanka Mareykanka inay markaa miisaaniyadda difaaca iyo kaalmada sanadkan ay ugu talagaleen Ukraine ay gaarayso $400 milyan oo labada sano oo soo socota Mareykanka ugu talagalay in la siiyo. marka waxaa lagu leeyahay weerarkan sidiisaba wuxuu ku soo aadayaa xilli Koongareeska Mareykanka ay u ballan qaadeen Ukraine $400 milyan oo kaalmo military la siinayo. dhanka kalena Trump wuxuu weli wada hadalkii waxaa la sheegayaa in maalmaha soo socda ay kulami doonaan Ruushka iyo Mareykanka iyagoo kulanka uu ka dhici doono Miami meesha la yiraahdo ee Mareykanka ay ku kulmi doonaan si dagaalkan iyo arrimihiisa loo dhameeyo. iyadoo hawsha lagu jiro ayay Ukrainianku sidaa sameeyeen. marka waxaa leeyahay arrinka waxaa ka dambeeyay nimanka Yurubiyanka oo aan ogolayn in maartay waantan iyo qaabkan uu wax u wado Trump ay markaa hirgalaan oo ay socdaan. laakiin hadda waxaa leeyahay marka Yurubiyanay ma ka celin kartaan Ruushku hadduu nimankan gacanta u qaado oo garaacayo ma yaale ma ka celin karaan. iyagaa tooda u baqayaba waa ogeydeenoo Yurubiyanka maalmahan oo dhan cabsi fara badan ka taagneen. haddaba marka adduunka xaalkiisu halkaasoo maraa wixii dunida ka soo kordha haddii Allah idmo barnaamijyada dambe ayaan idin kula socodsiin doonaa. inta aan mar kale kulmayno like gareeyo oo share gareeyo barnaamijka fakarkiina aragtidiina soo qora. nabadgelyo.